بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo dalkeena ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaal sokay oo soo laabtay dad walaalo ah oo wada deegaan ah oo wada deganaan muddo dheerna isku dilayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose Kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka Galguduud sida Furunta Foora iyo Balcad arrimahaas runtii waa arrimo dadka Soomaaliyeed oo dhan walwal gelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunka oo dhan ay ka dhacayaan cudurro halis ah oo dadka safureyn ugu dhacaya dad badan ay u dhinteen adduunka waaweynana ula tacaalayo iyo dadka Soomaaliyeed oo duruuf adag la daala dhacaya oo runtii haddana aad moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo la soo sawiro social media la soo geliyo iyo ayadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aad hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo 3 jir ah oo wali waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guriga la gubaayo runtii waa wax aad looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadanimadu intoodaba ay ka soo horjeedaan dhaqanka Soomaaliyeedna aad ugu xun marka waxaan leenahay dadka hawlahaas ku hawlan dhamaantood ilaahayna ka cabsadaano hana joojiyaano dawladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataan mas'uuliyadooda maxaa yeelay arrintan waa arrin khatar ah waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayna ummadda laga shaqeynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye waxaan leenahay wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba lagu ma gaarayo dhowr iyo 30 sano ayaa lagu soo jiray marka waxa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintan Allah u naxariiso dadka dhaawacana la caawiyo la caafiyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan leenahay arrintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhamaanteen ka geysana gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiig daadana in la joojiyo qof kasta oo mas'uuliyad saaran tahay inuu ka qayb qaato la rabo arrintaas ilaahay hortiisa iyo ummadan horteeda mas'uuliyadu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhamaan laga wada qayb qaato colaadana hal la joojiyo waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha Allah ta'ala hal kontaroolo oo dad waligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subhanahu wa ta'ala oo leeyahay aan ku wada noolaa karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlnimo oo wada noolaa karno in maanta la isku dilo iyada laftigeedu waa nasiib darro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikir lahayn dalkeena sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqeyno ummadeena isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaana ummadda inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado intaas marka ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale uga faa'iideysto fursadan fariinteyda ku aadan cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa la yiraahdo coronavirus dadka Soomaalida runtii waxa aad u muuqata inaysan diyaar garow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la sameeynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aad la isugu soo dhawaado oo yaani dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir 2 mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodan aad loo badiyo arrintaas waa muhiim maxaa yeelay waxaad ogtiin dalkeenu isbitaallo haddii dadku jiradaan hawlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aad u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin
diinteenu nafarayso aqliga bani aadamka oo noo sheegayo adduunka oo dhan ay sameynayaan dawladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dhiga nuglaado social distancing ha la sameeyo gacmaha ha la dhaqo salaanta oo gacanta ha la joojiyo aad ha loo taxadiro qofkii dareema inuu arintaas ay la soo gudboonaatana dadka iyo la soo dhexgelin ee la xiriiro dhaqaatiirta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weydiisanaynaa caafimaad aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.